ilaahay wuxuu kaga adagay dhulbaanta roob abaartaasi markay timaado nabadgelyada way qaadanayaan wada jirka Soomaaliland way qaadanayaan midnimada Soomaaliland way qaadanayaan ku raaxaysan raanka kaaraa daaroodow adaa rabbiga risaas ku bariyay xabaashi baad garaacaysaa albaabkii xabaasha garaacaysaane cadow aan ahayn ma jeerteen ma lihidin Soomaaliya meel kastaba jooga cadow aan lahayn aan ma jeerteen ama daarood ahayn ma lihidin hawiyana cadow aan daarood ahayn ma laha haday Soomaaliland xasarada kuwa daba socda ee balaayada daba wada waa ma jeerteen iyo Puntland ina ciidamadii ma jeerteen intii badneed ay ka soo noqotay waxaana weligeey maqan suuqa qaroon liya maxay suuqa qaroon yadadaana weligeey maqal talabadan ka hadlay wala saanood dagaalkii habeenkii dhumaantii wala saanood ka dhacay waxa weeye xaqan iyo xaqanba waa lagu dhintay hase yeeshee dagaalkaasi waa dagaal Puntland dabada ka riixayso waa dagaal 22 gudiyo qarmaajo uu ka yahay madax ya Cabdiweli iyo Deni uu dabada ka riixayaan waa dagaal aan ku guuleysanay qolada ma jeerteen ama huwantu waxa idin sheegaya ciidamada halka la keenay ciidamada Soomaaliya joogo ay ka badan yihiin way ka tareerin fiican yihiin way ka adag yihiin way ka baawirooyin ciidanka Soomaaliland waa derbi ayaan tidhawayta weerarka qaadeen wixii naga dhacay waa garanaysan iyo baabuur la inaga qabsaday maxaabiis la inaga hayo meedkiinu inuu farabatay waxaan leeyahay war albaabkan geerida garaacaysan iska daayo albaabka khayrka garaaca oo nabadgelyo qaata waxa weeye qolada odayaasha tagtay Hargeysa ayaan ka hadlaya ee ugaasku hogaaminayay waxaan leeyahay waxa laala waxaan kharash ahayn odayaashaasi wadaan ma jiraan waxaan kharash ahayn oo reer Soomaaliland odayaashaasi ay wadaan oo meesha ay ku tagaan ma jiraan odayaasha koob iyo laatanka oo qarmaajo madaxda u yahay Cabdiweli ayaa markii hore dhabarka soo taabtay yaga kharash gareeyay wadikii arkay la saanood ba tagan dhulkii xabaalihi ba taganaysa wareer ka qaadanayay waa dad bay ahaayeen sidii midowga Yurub soconayo idin soo dirtay waxa weeye boorogaraam baa lagu soo shubay qaar hadalkeena qurqursamaya maaha waa odayaal dhinac ka raran waa mid kale la saanood waa haddaan dhulbaanta qaano dhulbaanta mayadoo abaar hesho oo ilaahay abaartiisa u keeno mise inta roobkaasi u daayay barwaaqo hayaan inta roobkaasi u daayay barwaaqo helayaan dhulbaanta nabad qaadan maayo hadalkaygaas umad ku dhigta inta roobkaasi u daayo xabadaas ay ku jirayaan dhibaatadaas ay ku jirayaan ilaahay wuxuu kaga adagay dhulbaanta roob abaartaasi markay timaado nabadgelyada way qaadanayaan wada jirka Soomaaliland way qaadanayaan midnimada Soomaaliland way qaadanayaan waxay ku soo celceliyaan odagoodii iyo inankooduba dawlad Soomaaliyeed baan rabnaa calankii baan u dhimanaynaa Soomaaliya ciidan qaran buu leeyahay yaa idin dirsadayna calanka u dhimataan yaa dagaalkeedii geliyay munaafaqad iyo dhibaato iyo ololaaq doonaysa inay ku shidaan dawladda Soomaaliya ayaa u gasheen anigu horena waan u sheegay oday weyn lixdan jira wuxuu igu yiri markii madaxweyne qabsaday Xasan Sheekh dawladda waxa la wixii daaroodaha uu soo eriyay sumada dawladuna waxay tahay markay madaxweyne cusub qabsado dawladdu inay isbedesho dad cusub la magacaabo ama janana noqoto ama wasiiro dadkii cusbaa ee la magacaabay iyo dawladda cusubada la soo dhisay ayaa leeyahay daaradna inaka leeno jeeda waxaana ku qanacsanayn xabsaana ku qanacsanayn daarood waliba ma jeerteen waxaana ku qanacsanayn waxa weeye xamsa madaxweynaha Soomaaliya ku qanacsanayn Xasan Sheekh waxaana ku qanacsanayn calanka Soomaaliya waxay ku qanacsanayn xasarad iyo dhibaato iyo dib ay daba wadaan calanka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaali weyn meel kasta haday Soomaaliland xasarada kuwa daba socda ee balaayada daba wada waa ma jeerteen iyo Puntland haday dhibaato ka tahay Soomaaliya dabanaadir ka socota kuwa balaayada iyo baaska ka dhex wada ee dhibta ka wada ee munaafaqada ka dhex wada ee mooshinka ka dhex wada waa ma jeerteen iyo Puntland waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed cadow aan ahayn ma jeerteen ma lihidin Soomaaliya meel kastaba jooga cadow aan lahayn aan ma jeerteen ama daarood ahayn ma lihidin hawiyana cadow aan daarood ahayn ma laha waxaan halkan uga sheegayaa daarood inay madaxweyne damba ka noqonayaan Soomaaliya ra'iisul wasaare dambana inaan ma jeerteen ka noqonayn ayaan halkan idinku sheegayaa dagaalka la soconaad waxa dabada ka wada waxa riixaya waxa hubka rasaasta u soo diraya waxa riixayo kharash kareenayo 22 Cabdiweli gaas iyo madaxweyne qarmaajo iyo waxa weeye ilhaan iyo dad noocaas dadkii Soomaaliya ka ahaa madaxda ayaa dab ku shidaya dagaalka maanta waxa dhintay
كونية سنة دينتي لبضة دينعبا مد والبا كونية سناتي ما تهدي دارود أما دول بانتا انتو كديكا ورن لاوانا لحسوق adigana inta ka dhimataan laga dhimatay annaguna dhimanay adiguna dhimat warmiiska wada hadalka ma isugu nimaadnaado dalku waa Soomaaliland ama Soomaaliland iskaga guur oo tolka la noolow ama Soomaaliland qaado oo waxaad noqotaa Soomalilander laakiin Soomaaliland inta nin ka nool yahay waxa weeye dagaalka way galaysaa waxaan idin sheegayaa idinku reer baa ku gashay tolaaye baa ku gashay Soomaaliland ciidankii qaranka ku jira dagaalka ساسا ولبا أنك ودي كارسنا هذا غير Somaliland هذا نوع باشي غير شيء إسحاق ولي أنكو تقال كمان وقليل لكن إما كهدي نبت قليل القادم وايو إما كانوا تقال كقليلنا وحلو ولا بريقوره وحشري جرتمالي هذا دارت كحار ما أنت نقول شعدا وحنقدر دارت كحار وحلا أكو سوق بجبانية وردتك Soomaaliya نبت قليل كشقية مدحوينا Soomaaliya رئيس الوزراء Soomaaliya هالكم وحنو مرنايا Soomaaliya waxa ragaadiyay waxa weeye mooshin iyo qaylo iyo buuq ay soo abaabuleen daaro madaxweyne hadii ma ra'iisul wasaaruhu ku maqli waayo oo dulqaado madaxa u salaax nabadgelyada uu dhaliyay iyo dawladnimada iyo wanaaga uu dhaliyay la soco la waxa weeye kula shaqee waxa ku soo gabagabeynaya walaalaha Soomaaliya way gacmaha is qabsato qaranimada Soomaaliyeed meel looga soo wada jeesto ayaan la oranay Soomaaliland ma ka soo horjeeda Soomaaliland waa muqaddis dawladda Djibouti waa muqaddis waxa uu leenahay markii hore dawladda Soomaaliyeed waxaanu haysanay lugaha iyaguna madaxayna haysteen oo ictiraafkii bay noo diideen war idinkuna madaxana sii daayeen ictiraafa annaguna lugaha idin sii deeno laangaraha ka baxdeeno caadi ah u lugayseen waxaan leeyahay madaxweyne Xasan Sheikh iyo Xamse iyo golaha baarlamaanka ee Soomaaliya u badan yahay waar hal siidan lugaha siidan madaxana sii daaya oo ictiraafna siiya dhulbaanta waxa la gudboon maanta waxa la gudboon inuu nabad qaato dhulbaanta waan ogay dhaqaalay uu ka yaraaday garaad jaamac garaad Ismaaciil wuxuu dhaqaalihii soo dira waa kii media ka hadlayay waxaan ogay inuu dhaqaalihii ka yaraaday in ciidamadii imika baqti xalaal u yihiin inay waxay qaadanayaan khamrigii iyo qaadkii iyo waxay ku noolaayeen ilaa yihiin إن إذا ماضي ما شرتين أنتي بدنا ذاك صار نقطية وحنا ولي جاي مقنا سوق آخرون ليه محله سوق آخرون يتضع أنا ولي جاي مقال إن كسوة ذا نقدين ما أنت إن إلا سعنود جديد يتاجين تبغى قارو تكنيكود وحوي سيدي لا سعنودي أيام كور هيا وحلا يدل بانته نينا كورة نيان كوفر واحد كوتاي Somaliland waxa Somaliland baa ku aqoonsanaa reer jira tahay ma jarteen kuma aqoonsanaa reer jira inay tahay hadii daarood wax leeyahay jiro maxaa mooshika ugu kicinaysaan waxa weeye ra'iisul wasaare Xamse hadii daarood jiro muxuu Cabdullaahi Yuusuf Axmed ula dagaalamay siyaad bare maxaa loo dilay madaxweyne lagu dilay Laascaanood waxaan leeyahay Laascaanood kusin baa haya annagu waanu qaxnay madfac baana la dhacay diyaaradiina kacday dusheeda ka kacday baana rusheysay Laascaanood jiingadii Soomaaliya saareed waxaan leeyahay waa xaq inay qaxdo Laascaanood waa xaq in madaafiic la dhaco waa xaq inay waxa weeyay haadiya hadraawu ka dhirgo annagu bay dheerkii baanu sidaa iyo si laag baan qonay ciidan duqaysay ee madaafiicdan la dhacaysay ee diyaaradaha kicinaysan daarood baa waxaan leeyahay anigoo dhul baahanta aan leeyahay waa reer Somaliland iyo warsangal iyo faqashini waarnina ku raranayaan ku fureen nabadgelyo qaado hadii kale ku raaxaysan raanka kaara daaroodow adaa rabbiga rasaas ku bariyay xabaashi baad garaacaysaa albaabkii xabaasha garaacaysaane ciidan military ayaa macawis leeyahay kor ciyaaraysaane waxa weeyay waa dhimanaysaan meedkiinana waraabaan waaleed baa ka dhergi waxa ku soo gabagabeenaya waa ogtiin dhibaatada ka dhacay Soomaaliya annagu reer Somaliland daan nahay xuqaasha iyo waxgaradka iyo isimada iyo nin garbood ka shaqeeya nabadgelyada gacmaha isu qabsan laakiin tan odayaashana lagama qiimeeyo garaadada lagama qiimeeyo boqorada lagama qiimeeyo aqalada lagama qiimeeyo waxay horumar u gaari laadahay ee agaheeda dib isugu taag laadahay waxaan leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha halkan baa ugu daraya iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan leeyahay dalkan ka shaqaysiiya Somaliland waxaan leeyahay dagaalka waa dheereyseen dagaalka soo afjara muddo 7 casho gudahoodana awood waxa uu leeyahay ku soo afjara halkan kelmad baan ilaawo waxa weeye ninka leeyahay boqor raabi
waxaad ka isagoo la Muuse adiga madfac la dhacay adiga sida daadeer waa kala jaad aniguba mucaarad baan ahaa oo shalay mucaarad baan ahaa oo maanta mucaarad baan ahaa laakiin qarannimada iyo Muuse waa kala jaad qarannimada Soomaaliland waa muqaddis waxaan leeyahay boqor Raabi dee waxaad kala garan lahaday wadan batay waxaad la ambatay boqornimadii lagu dhiibay waana iska hadashay hadalkaasina waa saxmadow wuxuu la aamusana waa maaha wuxuu la hadlaana wuxuu la ciyaana waa maaha boqornimadiid bisadnimadiid waxa tahay waxaan waxba ka jirin mala madaxa nabarka kaaga yaala wax ku dhimay waa qof dhimana wuxuu dhiman yihiin baa tahay soo dhaweyntan ka hadlaya ninka leeyahay Facebook haysata hadaa soo dhaweysan iyo hadii kalaba laba gudiba ayaa garxajis leeyahay anagu waxaan aqoonsanahay gudida hogaaminaya suldaanka guud Suldaan Cabdilaahi Suldaan Cali Suldaan Cabdilaahi Suldaan Maxamed ayaan aqoonsanahay